Kani waa muuqaal ay duubtay CCTV-ga xarunta gobolka Banaadir intii uu socday weerarkii bahalnimada ahaa ee qawaariijtu ay ku soo qaadeen xarunta maalintii Axadda ahayd 22 bisha 1 2023. Laba qodob ayaa iga soo baxday. Mid waa midda ugu muhiimsan ee ah qiridda geesinimada labadaasi wiil ee dhalinyarada ay muujiyeen maalintaas, ayagoona weliba aan haysan hub culus oo ay ku dagaalamaan, ayay haddana iska caabiyeen intii tabartooda ahayd ilaa uu mid ka mid ah uu ku shahiido goobtaas, waxayna naftooda u hureen boqolaalkii kale ee ku sugnaa xarunta sidii ay u badbaadin lahaayeen. Qodobka labaad ee aan isweydiiyey waxay tahay falal amni darro iyo qarax lagu soo weeraro xarunta gobolka Banaadir kan uguma uusan horeyn oo waxaa ka horeeyay midkii qaraxa lagula eegtay isla xarunta oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid ahaa gudoomiyihii gobolka ahaana duqa magaalada Muqdisho Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, taas oo wax muuqaal ah haba yaraatee iyo cadeymo ku saabsan sida ay wax u dhaceen aan la soo bandhigin ilaa iyo hadda. Marka su'aashu waxay tahay CCTV-yada hadda duubay muuqaalkan maxay u duubi waayeen qaraxii Injineer Yariisow uu ku dhintay, mise waagaas xarunta maba lahayn wax CCTV camera ah.